injineer maxamuud xuseen buraale oo ka mid ah waqafka tawfiiq ahna mas-uulkii sida gaarka ula socday dhismaha masjidkan cusub ee Nether Roman ayaa wuxuu inoo ka warbixinayaa sidii uu ku bilaabmay fikradan ah in masaajid laga dhigo xaafadan iyo xilliyadii uu soo maray iyo maanta halka uu marayo heshiisyadii la galay. sidaad la socotaanba sanadkii 2021 guddiga masjidka Tawfiiq Islamic Center iyo guddiga Tawfiiq waqafka waxay go'aan ku gaareen in laga iibiyo Nether Roman masaajid. sababtaas oo ah in halkaas ay ka jirto baahi diimeed oo dadka Soomaaliyeed oo u guuray xaafadaha Guruur Daalen iyo agagaarkeedaba. guddiga waxaa loo xil saaray guddi ka kooban masjidka Tawfiiq Islamic Center iyo waqafka iyo dad waxgarad ah. 15 bishii 12aad ee 2021 waxaa heshiis lala galay markaasayto shirkadii iibinaysay guriga. waxaana lagula galay inay mataqaanaa keento markaasayto si masaajidka loogu isticmaalo dowladana inay ka codsato masaajid inaan ka dhigan karno meeshii. 17 bishii 8aad 2022 markaa waxay dowladdu ay soo ogolaatay inaan meeshii Nether Roman masaajid ahaan aan u isticmaali karno. dowladdu waxay nagu xirtay inaan mataqaanaa aan dhisno hays ama liftiga ama wish inaan ka sameeyno. 14 bishii 7aad 2023 baa markaas waxaan dowladda ay noo ogolaatay dana inaan hawshii aan bilaabi karno. heshiiska gadashada sida la socotaanba masjidku wuxuu ka kooban yahay 3 dabaq. 3 dabaq marka waxaan ku heshiinay lacag dhan 34 milyan iyo 800 oo koronka Norwejiga. waxaan ku heshiinay inaan marka ugu horeysa aan gadano dabaqa labaad iyo dabaqa saddexaad lacagteeda aan bixino oo lacagtaas oo u dhigmata 22 milyan 400 oo kun oo Norwejiga koronka. dabaqa koowaad laakiin waxaan ku heshiinay inaan ku bixino muddo 3 sano ah. sanad walbana aan bixino marka 4 milyan 470 kun oo Norwejiga. annaga u kala bixinayna marka 31 bisha December 2023 bisha December 2024 iyo bisha December 2025 aan ku soo gabagabeynayno. injineerka oo ka waramaya halka ay hadda xaaladdu marayso iyadoo masaajidka loo ogolaaday iib ahaan balse dhismayaashii iyo qaybihii kale ee dhismaha masaajidka ee shaqadiisii socoto waa kan isagoo mar kale inoo ka waramaya halka ay hawshu u marayso iyo waxyaalaha ilaa hadda la qabtay. mar haddii masaajidkii la gaday lacagtiina la bixiyeyna masaajidkii marka waa in loo diyaariyaa masaajid ahaan. waxaana ugu talagalnay markaas inaan u diyaarino diyaarinta qaacadaha salaada, diyaarinta musqulaha iyo weysada ragga iyo dumarka, kantiinka ragga iyo dumarka maqaayadaha, qaybaha waxbarashada, xafiisyo iyo maktabad akhrisa iyo meel aan ugu talagalnay gym qaybta gymka loogu talagalay. diyaarintaasayto marka hawlahaas loogu talagalay waxaa maanta noo suurta galay oo maanta diyaara oo la dhammaystiray. hayskii waa dhammaystiran yahay. musqulo ay dowladda nagu xirtay oo ah loogu talagalay dadka baahida gaarka qabana waa la dhammaystiray. maktabadii akhriska ahayd way dhammaystiran tahay. xafiisyadiina waa la dhammaystiray. hawlaha marka hadda waxaa socda hawlo mataqaanaa jarjarkii ku saabsan. waxaa socda diyaarintii qaacadii ragga uu ku tukan lahaa. waxaa socda musqulihii iyo qaybtii weysada ee ragga mataqaanaa weysada ragga ayaa socota hawlaha socda. waxaa socdo kale qaacadii ay dumarku ku tukan lahaayeen ayadana ka go'an. waxaa socdo kale meelihii loogu talagalay musqulaha iyo maqeel maqaayada oo dumarku u leeyahay hawshaas socota. waxaa socdo kale meeshii gymka loogu talagalay oo runtii ka kooban ayadana 3 qaybood ah. qaybtii gymka lagu ciyaarayay musqulihii qofka markuu mataqaanaa gymka uu soo dhamaysto uu ku qubaysan lahaa iyo meeshii loogu talagalay baadstuwaha ama meeshii loo yaqaano zoonaha oo kuleelka ah. taasna way hawsheedii baa socota. waxaa kaloo socda samaynta isagana fasaladii loogu talagalay oo ilaa 5 fasal ka kooban oo socda isagana hawshaas socota. hawshii waxaa socda markaas kantiinkii ragga iyo hawlihii loogu talagalo dhan. intaasoo lacag hawla ay socota maanta waxay ka baxsan tahay markaasayto lacagtii aan ku heshiinay ee 34 milyan iyo 800 ahayd. waa lacag loogu talagalay markaasayto ku baxaya lacagaha dheerka marka waxay noqonayaan hayska oo dowladda lagu xirtay runtii waxaa ku baxaysa lacag 4 milyan. jarjarka
sida loo diyaarinta meelaha qaacada salaad lagu tukanayo weysooyinka goobaha jiimka muxuu ahaa waxbarashada waxaasoo dhan waxaa ku baxaya jarjarkeeda oo la hawsha maanta socota ahna waa 4 milyan oo kala waa masaajidkii marka wuxuu u baahan yahay sidiisa haddana qalabeen buu u baahan yahay iyo in la qalabeeyo sida katiifada in la dhigo mikrofoonadii in loo sameeyo kaamirooyinka in la sameeyo qalabkii xafiisyada in la sameeyo qalabkii waxbarashada in la sameeyo qalabkii meeshii jiimka ahayd in la sameeyo intaana waxaa ku baxaysa runtii lacag 3 milyan marka waxaa lacagta soo korortay ee uu masaajidku u baahan yahayna waxa weeye marka waa 12 milyan oo ka baxsan markaasayto lacagtii gadashada ahayd waa ilaa ay hadda marka lacaga waxaa jirta aan hore u bixinay sida dabaqa labaad iyo dabaqa saddexaad gadashadeeda lacagtii ahayd 22 milyan 14 boqol lacagtaas waan bixinay lacagtii loogu talagalay dhismaha hayska oo 4 milyan waa la bixiyay jarjarka qaybta jarjarka ee hadda socota waxaan sii hormarinay oo hadda aan bixinay lacag 500,000 oo Norwegian dabaqa koowaad maadaama aan dhahnay asaga 3 sano aan ku bixinayna haddana la taagan yahay sanadkii koowaad asagana waxaan bixinay lacagtii 4 milyan 470,000 oo Norwegian lacagta ilaa hadda masaajidka ku baxday waa 30 milyan 370,000 oo Norwegiga ah way waxaa dhiman marka lacag kale u baahan yahay masaajidkii sida labada sano soo socota dabaqa koowaad si aan u iibsano waxaan ugu dhiman lacag 8 milyan 930,000 oo Norwegian howlaha ayni sheegnay ee socdo ee diyaarinta meeshii loogu talagalay sida qaacooyinkii wixiina waxaan u dhiman runtii lacag 4 milyan qalabayntii masaajidka lacagtii ahayd 3 milyan way dhiman tahay masaajidka marka waxaa ka dhiman oo maanta u baahan yahay dadkana uu weydiisanaya waa lacag 15 milyan 930,000 oo Norwegiga hawshaas ballaaranna cid kale oo mataqaanaa maanta u fadhida malaha waa dadka Soomaaliyeed iyo qaabkii mataqaanaa lacagtaasayto lagu keeni lahaa guud ahaan marka lacagta masaajidkaasayto markaan dhamaystirno oo gadashadiisa iyo wax oo dhan ay noo dhamaystaan masaajidkaas wuxuu ku fadhiisan doonaa qiimo ah 45 milyan 500 oo lacagta Norwegiga sidaas daraadeed baan waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiintaaba in mashruuca socda ee lacagaha dhimanna mataqaanaa si looga qayb qaadan lahaa iyo hawshaasayta dhimanna in dadka la iska kaashado waa hanti mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waa meel la rabo in dadka Soomaaliyeed ay ku cibaadaystaan oo danahooda mataqaanaa diineed ay ku fushadaan وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته